dhan waxaan diyaar u ahay inaan maalin walba aan ka sheego oon adoo haddaad joogto magaalo heble lambarkaa wac haddii lagu dhibaateeyo la xidhiidh adeeg degdega weydiiso gargaar weydiiso haddaad ilma yar tahay haddaad shaqaale guri tahay haddii aad xaas tahay haddii aad oday tahay haddii lagu dhibaateynayo haddii lagu jirdilayo lambarkaa garaac saa u garaac anaa sheegaya iisoo sheeg bal waa magaalada ugu horeysan ee haysa meel caruurta yar laga gadgaado oo service ama adeeg degdega leh oo maartay laga gargaarayo war dulmiga haddaynan ka hortagin oo inaan dagaalamin dulmiga haddaynan dagaalamin inaga cuqubadu weynaada saameynaysa saa daraadeed caruurta yaryar waxaan leeyahay baxsada ka baxsada guriga lagugu dhibaateeyo ha joogin dib ha isu dhiganin ha sugin inta lagu dilayo inta xarig lagugu cijinayo ha sugin mar haddaad aragto qofka meesha jooga la kacabsina uusan lahayn akhlaaq uusan lahayn damiir uusan lahayn dadnimo uusan lahayn cadaalad uusan lahayn soomaalinimo uusan lahayn xataa human being maxaa soomaalinimo u leh soomaalidu waa bahalahaas qaarkood ku jiray yacni qofku waa inuu damiir bini'aadanimo uu leeyahay seebaad ilmahaaga hortii uga hordili kartaa ilmahaaga yar muxuu u dulmigaasaad kusoo korisay sooma bal dhowr iyo tobanka carruur hadda laleeyahay dadkaasaa dhalay maxay noqonaya ilmaha yar maalin lagu horsilci jiray bulsho dhan generation dhan baa lumay sooma oy akhlaaqdii ka dileen oy masiibo ku sameeyeen walaalayaalo ilaahay aynu ka baaqano koley dowlad laga baqaa ma jirto waayo dee adeeg dowlad maba jiro soomaaliya halkii buu adeeg dowlad ka jira adeegga dowladda lagu sheegay cadaaladda asaasi u ah adduunka dowladuhu waxay dadka gaarsiiyaan waxaa leedahay dowladda waxaa lagu gartaa xataa hadday adeega keliya adduunka oo dhan ay bixiyaan ka siman yihin wixii dowlad sheegtaa waa cadaalad waa laga yaabaa dadko dhan xilli inaad oo qayba karin laakiin dadko dhan cadaalad waad gaarsiin kartaa waayo cadaalad waxaa weeye war koobka shaaha adu aad gacanta ku haysa cadaalad ka samey haddii lagu dhaho koob shaaha qaybi oo 3 nin u qaybi u kala sho 3 nin haddaad laakiin nin siiso koobka shaaha haddaad nin siiso tirado oo hebel oo kaliga cab dee waad samayn karaysa cadaaladda waxaad haysayna waa yare ها ما أنت سكتك قلبك دوشنا قيمة لدلك جبان أي ودك لو يقانو طبعا أما دلك للنهو يعني أما اللي هذو شنا تاريخ أضح بورتك كده حيسي تقال كل بعد الدنيا ده واحد وقتان يكيكو بعد الدنيا ده اللي بضا جبان كو سحون بيوقلن شنا مرة ويقب صدين مرة ويدباتيين مرة عكتين مريان دباتوين آد أحوجن ayayna geysteen oo maartay oo la yaab leh labadan dal ayadoo tuntaas u dhaxayso haddana dawladda Shiinaha ayaa Mareykan waxay uga digtay dawladda Japan inaysan xasuusin falxubeenkii ay sameeyeen dawladda Japan boqortooyadeedii ciidankeedu dagaalkii labaad iyo dagaalkii koowaad ee dunida labadaba Shiinaha dhul badan oo kamid ah ay gumaysanayeen markaana qabsadeen dagaalkii labaad ee dunidana waxyaalaha ay ku sameeyeen caanka waxaa kamid ah inay magaalooyin dhan intay soo galeen dadkina xaaqeen kufsi bahsan ay ka sameeyeen ciidamada markii 80 sano ka hor dalka Japan markii dambe waatii nuclearka lagu garaacay kadib markii la jooji kari waayay sahi iyo waliba orodkii lixaadka leh ee wadeen dabadeednaas waxay dhalisay yaaliri in hadeerto dalka Japan oo aad iyo aad u wado qorshe labaad oo uu doonayo Mareykan in uu ku sameeyo sidaadaraada Japan waxa la ogaaday inay doonayaan kooxda loo yaqaano Taiwan ee go'aansadka ah inay ka shaqeeyaan sidii ay u sii ballaarsan lahayd awoodeeda dhinaca militariga dawladda dalka Shiinaha ayaa ku tilmaantay inay caro aad u xooggan ay kula dhici doonto una aragto duulaan gardarra oo ka imaanaya dhinaca Japanese-ka yiraahdeen haddii Japanese-ku ay go'aansadeen ama ay sii wadaan in ay qoriyayaan midnimada dalkaasi ergeyga joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay u jooga dalka Shiinaha ayaa yiri haddii Jabanku ay isku dayaan in ay mar kale ay sameeyaan hubayn iyo in ay hubaysan ama qalab hubeysan ama qalab hubsida sida maraakiib iyo wax la mid oo kale iyo doonyo ay soo mariyaan gacanka ay yiraahdeen the street loo yaqaan Taiwan street taasi waxa weeye ayara intervention waa faragelin sida daraadeedna ama waa army intervention waa faragelin hubeysan bay yiraahdeen dabadeedna dawladda dalkeenadu waxay ku qasbantahay inay qaado talaabo waxayna u aragtaa duulaan guraacan oo Japanese-ku iyagoo isbiinbiinaya oo indhaha isku qabsay soo qaada sidaas waxaa sheegay Fun Kon oo ah ergeyga markaasi golaha ammaanka u jooga qaramada midoobay oo warqad toosan u diray madaxa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuuna sheegay in dawladda
jaban ay garanayso cawaaqib xumada halka ka dhalan doonto. Wuxuu uga digay haweeneyda cusub ee waddankaasi Japan ee loo yaqaano Sani Takashi in aysan gebi ahaanba samayn khaladaad. Hadal ay dhawaan sheegtayna wuxuu ku sheegay inay taasi tahay mid kale oo keeni doonto wadna kurkur. Wuxuuna ka digay in dowladda Japan gebi ahaanba aysan samayn khaladaadkii masiiriga ahaa ee hadda ka hor ay samay jirtay. Shiinuhuna uusan ahayn Shiinihii 1930kii ee uu yahay Shiina jooga 2025. Macnaheedu waxa weeye idinka awood badan, idinka dad badan, idinka dhaqaale badan, idinkana markaasi ciidan badan, hub nuclear iyo wax kastana idinka badan. Japan ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in aysan gebi ahaanba aysan ka gabangaabsan doonin. 7 bishii November ayaa Japan waxa laga soo xigtay inay leedahay annagu waxaanu sii noqon doonaa kuwa taageero lixaad la siiya Taiwan haddii la iscul cuno oo la isku duulo. Dhinaca kalena daawashada qiimaha badan iyadoo ay taasi jirto ayaa dhinaca kale dowladda Mareykanka iyo Japan Shiinaha andhaho ay ka wada hadlayaan labadaas dhinacna iyaguna qadiyada ka taagan badda iyo weliba dhulkan gacanka istaraatiijiga Indo-Pacific iyadoo dowladda Mareykanku ay doonayso inay galaangalka iyo mushaaxa maraakiibteedu ay markay doonaan badareeraan badda South China si ay u aragto dowladda Shiinuhu gardarro ayaa la sheegay in markii ugu horeysay kulan military oo military dhex maraya China US military maritime loo yaqaano consultative agreement ayaa jiray wax ama heshiiska military ila military iyo wada tashiga MMCK loo yaqaano ayaa wuxuu ka dhacay guddigoodii jasiiradda Hawaii ee dalka Mareykanka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha waxay sheegtay iyo wargeyska maalinlaha waxay sheegtay in labada dhinac ay ku qanceen in wada hadallada la sii wado haddii kale ay xumaan imaan karto. Labada dhinac waxa ay doonayaan in ay yeeshaan wada hadallo macaan isla markaana lagaga hortago ayay yiraahdeen khaladaad masiiriya oo dhaca maadaama labada ciidan ay yihiin kuwa qiriya qilisku ah. Wadamadii reer Yurubna ayaguna wali ku shaqeeya wararka waxa dhibaatooyin aad u xoogan ay wali ka tabanayaan dhinaca Ruushka. mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn ee dalka Netherlands ayaa isagana albaabada la isugu dhuftay kadib markay sheegeen inay arkeen waxay ugu yeedheen markaasi walxo duulaya oo u eg drones lagu soo weeraray sida ay sheegayso waaxda dhinaca hawada iyo badqabka ee dalka Netherlands. Holland si kale degmo airportka dhinaca koonfurta dalka ku yaala loo yaqaano Eindhoven ayay wararku xaqiijinayaan in lagu kala cararay saacado badanna uu xidhnaa. sidaas waxaa sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi Netherlands. waxay sheegeen waxaan qaadi doonaa tallaabooyin wax ku ool ah oo aan ku hubinayno badqabka aagagaas iyo sidoo kale waxay ugu yeedheen sii socodsiinta xaqiiqooyinka ku aadan in horta la hubiyo bay yiraahdeen waxa meesha soo dulmaray. dowladaha reer galbeedka ayaa dalka Ruushka bariga ugu dambeeyay waxay ku eedeeyeen inay Ruushka hadii ay yihiin ay sameynayaan waxay ugu yeedheen daroono loo soo kala dirayo garoomada wadamada European-ka gaar ahaan magaalooyinka ay ka mid yihiin magaalooyinka London, Brussels, magaalooyinka ay ka mid ka tahay Berlin, magaaladan hadirto dhinacan Eindhoven jirta iyo sidoo kale magaalooyin kale oo Trapela oo reer Yurub ayaa imaanaysa iyadoo oo dalalka reer galbeedku dhinaca kale ay weli qir iyo qir ay isku yihiin dalka Mareykanka oo isagu doonaya in la dedejiyo xabad joojin lala galo dalka loo yaqaano ama wadanka la dhaho ee Ruushka isla markaana ay dowladdu sheegayso Mareykanku in ay ka soo dhamaatay walaaca gabi ahaanba iyo bixinta hubka iyo saanad ka sii soconaysa iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku andacoonayo in arrimaha noocan oo kale ay yihiin kuwo ay mar hore ahayd in soo afjaro laakiin hadda waxaa la ogaaday in wadamada reer galbeedku ay qir iyo qir isku yihiin dhexdooda kadib markay sheegeen in qodobada qaarkood yihiin waxa la aqbali karayn. saraakiisha dalka Mareykanka iyo kuwa Ukraine ayaa ku kulansan Geneva waxaana ka wada hadli doonaan 28 qodob. wararka ayaa xaqiijinaya in kulankan uu noqon doono mid diiradda lagu saaro. madaxweynaha Ukraine ayaa waalwaalanaya wuxuuna marba ka soo hadlayaa bartiisa loo yaqaan X wuxuuna isku dayayaa in uu sheego in dalkiisu uusan dhiibi doonin dhul aad xoogan. hogaamiyaasha dalalka reer galbeedka ee Jarmalka sida Faransiiska, UK iyo EU ayaa iyaguna magaalada Koonfur Afrika xarunta dhaqaalaha u ah ee loo yaqaan Johannesburg kaga tiraabay in Ukraine ay ku jirto maalmihii ugu adkaa taariikhda. dhakhaatiirta daraasaadka cilmi baarista ee dadka markaasi aad ugu fogaan ayaa wargeyska Independent waxay ku qoreen daraasaad la yaab leh oo muujinaysa in dadka qaarkood haddii uu jirkooda soo galo xanuunka daran ee loo yaqaan kankarada inay markiiba garan karaan gaar ahaan 8 calaamadood ayay soo bandhigeen oo ay kula taliyeen dadku inay marka horeysa fiiriyaan. macadka daraasaadka iyo waxda u qaabilsan baaritaanada dalka Ingiriiska xanuunka kankarada ee loo yaqaan Cancer Research UK ama UK Cancer Research ayaa sheegtay in 53% dadka laga helo xanuunka isla markaana xanuunka kankarada qaba ay hal calaamad isku wada arkeen. 6844 qof ayaa lagu sameeyay baaritaan waxaana lagu sheegay in calaamadahaasi hadii ay qofku isku arko ay gabi ahaanba aysan ahayn in uu in yarna isugu. waxaa ka mid ah ay yiraahdeen waxyaalaha qofka hadii uu qofku ama waliba dumarka ayaa laga hadlayaa markan
haddii ay isku arkaan ama ay dumarku isku arkaan ayaa leh calaamadaha ay ka midka tahay markaasi naaska hoostiisa inuu bararo. haddii aad isku aragto halka horaadkaaga hoostiisa wax barara oo yar aad ku aragto, waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar degdega aad aragto. sidaa daraaddeedna ha dhayalsanin ayay yidhahdeen dhakhaatiirtu. haddii gaar ahaan qeybta hoose ee markaasi horaadka meesha uu ka bilowdo ee guntiisa ah iyo inta sare korkooda, ayay yidhahdeen dhakhaatiirtu, iyagoo sheegay inay taasi tahay calaamad. waxayna sheegeen in daraasadaas ay ku ogaadeen arrintaas. waxay kaloo sheegeen in qofku haddii uu isku arko miisaankiisoo dhacay iyo daal tirabeela, haddaad isku aragto daal la yaab leh iyo sidoo kale miisaankaaga hoos u dhacaya, adigu aadan ridin miisaankaagii, adigu maad ridin, kumaad talagelin ama dhaayad maad gelin, laakiinse miisaankaaga dhacaya, taana waxay yidhahdeen waa calaamada labaad, sida uu sheegayo professor Winter oo ka mid a dadka baaritaanka sameeyey. dhinaca kalena waxay yidhahdeen haddaad isku aragto waxaa loo yaqaano bruising. bruising waxa weeye nabaro ama dhaawacyo adigu aadan ogeyn wax kugu dhuftay, meel lugtaada meel kumaad dhufan, gacantaada meel kumaad dhufan, yani haddana bruise baa kugu yaal. bruise waxa weeye waa nabar aad moodayso in sidii lagugu dhuftay oo kale, waa nabar yaroo maarata aad moodayso in lagugu dhuftay oo kale, meel baa ku gududatay, meel baa iska kaa maarata iisheeg nabar baa kugu dhacay. war nabarkan maxay igu dhuftay, war meesha maxay kaga dhacay, war anigu ma ogi. saasoo kale waxay yidhahdeen iyadana waa inaad baaritaan degdega aad samaysaa sida ugu dhaqsaha badan, waayo ma sharaxi kartid. haddii dhakhtarku kugu yidhahdo meel baad ku dhufatay, ma qof baa ku qanjiiriyey, ma nabar baa kugu dhacay, intaasoo dhan ma dhicin, laakiinse nabarhaa kaasoo baxbaxay weliba lagugu madin lagugu dhuftay, maha fin maaha. waa inaad waa bruising baa lagu yaqaana ama bruise baa la dhahaa afka ingiriiska. soomaali marka waa nabar un baan dhihi karaanu. waxaa kaloo ay yidhahdeen arrinta kalena waxa weeye ama arrinta saddexaad waxay ugu yeedheen waxa weeye haddii dhaqdhaqaaqa malawadkaagu isbedelo, oo macnaheedu ay tahay musqusha markaad aadayso, haddii musqushaadii waa gebi ahaanba waxaad laba maadaama mid kugu dhacay, caloosha iskaa taagtay nag, marigii hore calooshaadu maysan taagnayn oo way fiicneed, amase calooshaadii way kasoo dartay oo musqusha unbaad kusii ordaysaa, mar la arko shuban oo kale camal ayaad noqota. moogtahay musqushii xilli aadan geli jirin, dadka qaarkood musqush dhowr jeer bay booqdaan, qaarkoodna de waxa laga yaabaa inay maalintii hal mar, qaarkoodna labadii maalmood hal mar, laakiin wax dheeraadaad aragta. taana waa inaad baaritaanka aad ka qayb qaadataa, iyo in neefta kugu yaraato. marka qaarkood neeftaada ayaa yar oo neefsigaaga oxygen levelkaaga ayaa hoos u dhacay, naqaskaaga yani naqaskaad qaadanaysid kaasoo baxaya ayaa kugu yar, waad caburaysaa markiiba, ama neef qabatoobaysa, ereygaasaan raadinaya. sidaa daraaddeed taana haddaad aragto waa inaad isbaadhaa oo dhiigga iska qaadaa sida ugu dhaqsaha badan, iyo qufac weliba kan loo yaqaano qufaca. waxaa jira marka mid la yidhaahdo persisting maarata cough waxa weeye qof maarata maanta dha quxuu dhahayo oo dhowr daqiiqo ama hal daqiiqo isku xigta qufacan kale jooji karayn. qufaca noocaas oo kale xataa haddaad hargab qabtid macquul maaha bay leeyihiin dhakhaatiirtu, waxaan dhakhaatiirtan kasoo xigtay. sidaa daraaddeed waxa weeye waa calaamado ay leeyihiin haddaad mid ahaan isku aragto isbaad intays xaaladaadu darsan. marka aniga dadkeena waxaan rabaa inay isbaadhaan. okay, qodob kale waxa weeye skin change wax loo yaqaano. skin changeska waa maxay? inuu maqaarkaagu isbedelo. maqaarkaagii ayaa isbedelay ayuu leeyahay Mr. Winter. wuxuu leeyahay tusaale ahaan haddii qaybo ka mid a jirkaagii aysan gebi ahaanba aysan noqonaynin kuwo sidoodii hore ah, midabkaagii baa isbedelay. qof waxaad ahayd jirkiisu uu nadiif yahay, ama xaad baad lahayd, xaadaadii baa yaraatay, gacmahaagii nadiifta ahaaye baad moodaa inay madow fuulay, meelahaasoo kalea wax kaasoo baad isku aragtay aadan horey isugu arki jirin, cidyahaagii baa si noqday oo maarata isheegaada aragtay, skin change kugu dhacay. marka waa inaad isweydiisaa. yani dadka qaarkood baa intay wax isku arkaan aan haba yaraatee aan baabartaa ka dhaqaajin, oo aan haba yaraatee waxba sameynin, oo yidhahdo iska caadi, maybe waa iska caadi ma. waa inaad eegtaa oo tirahdaa maxaa kalow ku dhacay maqaarkaagi, maxaa ku dhacay maqaarkaaga soo kan isbedelay, maqaarkaaga ama hadduu qaayisay ama wuu dhegay ama wuu maarata ii sheeg ama xididaa kaa soo baxay horeeda oo taana waa inaad baadhaa. waxayna sheegeen kooxda loo yaqaano in mar walba GP-gaaga aad ogaato islamarkaana aad la socoto ay yidhahdeen. calaamadahaasina waa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka kaankarada, si aad ilaahay dhammaantiin hanaga ilaaliyo, dadka uu hayo na ilaahay ha ka bogseeyey, dadka soomaalidana ilaahay soo hadeeyey, soomaalida dalkii iyo dibadaba kuwa jooga ilaahay soo hadeeyey. qodobka ugu dambeeya dabashana qiimaha badan, waddanka Pakistan ayaa la sheegay inuu ka baaraandegayo inuu isaguna uu ciidankiisa awooda badan uu usoo dumo magaalada Qasa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku cadaadinaya dowladda Pakistan inaysan kala hadhin ciidankeeda, halkaasi iyadoo dhinaca kalena ergeyga golaha ammaanka qaramada midoobay ugu jira dalka Pakistan oo la yidhahdo Caasim Iftikhaar Ahmed
uu sheegay in dowladda dalka ay weli ay ka faalloonayso maadaama qaraarka ay wax ka ansixisay sidii ay oga hadli lahayd arrintaasi. dhanka kale waxaa la sheegayaa in axmed uu leeyahay dowladda maraykanka madaxweyne donald trump wuxuu doonayaa in guddiga loo bixiyo the board of peace the pop loo soo gaabiyo inuu kusoo biiro ra-iisul wasaare shahbaad shariif. haddaba dowladda bakistan haddii ciidankeeda ay geyso halkaasi waxaa la sheegay in xujada ugu badan ee bakistan ay ka baqayso ay tahay hal shay sida uu sheegayo ikhtifaar iyo dadka kale la midka mas-uuliyiinta ah ama caasim iftikhaar baa leedahay iftikhaar axmed. waxaa ka mid ah bakistan dalka turkiga iyo dalka la yidhahdo masar waa saddexda dal ee caalamka islaamka ugu awooda badan. ciidankooda militariga hadday tagaan xujada ugu weyn ee qabsanaysa ma taqaanaa xujada ugu weyn haysta waxa weeye waa inay badbaadiyaan dadka reer falastiin ayaanu u gurmanay oo ama nabad ilaalin baanu sameynanaa oo qase ayaanu joognaa israa'iil ayaana marba 20 hortayda ku dilaysa. waxay yidhahdeen haddii ay dhacdo dowladda bakistan waxay ka baqasaa in kacdoon dadweyne uu kaga dhaco dalkeeda oo dadka reer bakistan waxay ka mid yihiin dadka ugu taageerada badan qadiyadda falastiin. sidaa daraaddeed bakistan waxay sheegtay in ay ka doodeyso oo ay dowladda maraykanka ku cadaadinayso in loo ogolaado ciidamada bakistan inay noqdaan protection in ay ilaaliyaan oo badbaadiyaan dadka reer falastiin oo ay ka badbaadiyaan cid walba including israa'iil ay ku jirto inay ka badbaadiyaan. haddii aan taa loo ogolayn oo ay tahay un meelaha marmar oo sida kuwa lubnaan jooga ee maarata maalin walba inta israa'iil soo dabamarto ay dadka reer lubnaan ay kaf ka siiso iyo kuwan suuriya jooga ee meesha maarata golan heights jooga inta lasoo dabamaro uu netanyahu isagoo diirad sita uu magaalada ifsado magaalada la yirahdo dimashq waxaasoo kale waxay yidhahdeen anagu kama qayb qaadan karo waxa noocaasa yani eeg fiiri bakistan dowladda maanta haysata waa dowlad dabadhilfa horta ninka ra-iisul wasaaraha dabadhilfa lagu eedeeya waayo qoyska oo dhan baa qoys dabadhilfa lagu eedeeya marka xaqiiqada laga hadlaya waa dad reer galbeedka u dhow qoyskan reer Nawaz Sharif laakiin eg at the same time dabadhilfnimadu ma gaarsiisna in la isticmaalo la use gareeyo sababtoo ah dadka bakistaaniintu waa dad aad u awood badan waana dad midnimo badan waana dad kacdoonka yaqaana. hadda fiiri sidaa daraaddeed dadkooday ka baqayaan dowladdu waa laba maada mid un ninka hogaamiyaha inuu hogaamiye fiican yahay iyo in uu dadkiisa ka baqayo dadku dad fiican yihiin labadaas haddii aad dad fiicanna weydo bulshadaadina haddaysan fiicnayn hogaamiyihiisa un fiicnayn maxaad noqonaysaa ma taqaanaa reerba ow yaa kule wey waa waxa soomaalida haysta waa reerba ow yaa kule hogaamiyaalla ma lihid shacabna ma lihid shacabkiina ma midaysna oo dantii guud iyo danihii guud ee qaranka iyo tii caalamka iyo toodii iyo shaqaabuurkoodii iyo xasuuqa ku dhacaya iyo musuqmaasuqa loo geysanaya kama gadoodi karaan iyo dulmiga kama gadoodi karaan waa dad mar hore laga shaqaystay oo xildhibaano iyo odayaal kaba qabiilayaala inta ay kala meel ku kala qabteen iyo kuwa maamul goboleed oo trapela samaysteen oo middo meel ku xidhay hogaamiyo isku soo ururiyo oo ayagu ay ku dhaataan oo soo ruqa qaada bulsho ahaan oo bedelana ma haystaan sidaa daraaddeed waa reer baa u yaa kule. hadda marka reerkan bakistan la yidhaahdo ayagu wuxuu ka baqaya warqadda uu diray ninkan sarkaalka ah ee qaramada midoobe fadhiya wuxuu yidhi bakistan waxyaalaha ugu weyn xujooyinka ugu waaweyn qabsanaya waxaa ka mid ah waa in loo ogolaado. marka hadda maxay dowladda maraykanka ku cadaadinayaan waxay leeyihiin haddaad rabtaan in bakistan ciidankeeda halkaa loo diro waa inaad noo siisaan go-aan in aanu dadka falastiin badbaadino ma badbaadinayna soo maaha maxaa meesha ka doonayna marka anaga okay maxaa imaanaya marka ayagu waxaad moodaysaa marka inay arrintan ay asxaab samaynayaan maya waxay ogyihiin waxaa imaanaya qasaa dadkii lagu laayay ciidanka bakistan oo meeshan soo tuban oo qoryihii dhaadheeraasa u wata bal ish qiyaasak oo intay nidaamka sanad intay soo dabamaraan dumar iyo carruur ay laayaan kadibna Islamabad baa laga daawada maxaa loo arkaya dadka reer bakistan maxay u arkayaan waxay u arkayaan in ciidankoodii makhraati laga dhigay ayagana la sharaf dilay magacoodiina la dilay kadibna mudaharaad baa ku kacaya dowladda dhow la ridaya. sidaa daraaddeed shuruudaha ay xidheen baa ka mid dadkana waxaa la sheegaa xataa qaar ka mid waxaa leeyahay hogaamiyaasha jilicsani waxay u sheegaan baa la yidhi maarata madaxweyneyaasha jilicsan waxay u sheegaan baa la yidhi dadka booska iyaga oo ah madaxdooda sida dee maraykanka oo kale markay la hadlayaan waxay u sheegaan baa la yidhi hal arrin warde maxaan sameeyaa arrintaas ay haysatee aniga haddaad dirto shaqo ii dirto oo shaqadii aad igu khasabto oo tirado khasab ku qabo oo aan kaa baqayo oo shaqadii markaan inay igu adkaato maxay tahay sheegeen macnaha waa inaan kuu soo sheego quraaniyo intan saas igu noqotay dee taageera u baahanay qof kale oo ila xamaalay igu yeedh saas wey wax bakistan maanta ka hadlayso. haddaba arrintaasi waxaa la sheegay in ay turkigana qabsatay turkigu laakiin mar hore ka hadleen turkigu because turkigu waa dal madax bannaan
أنا waxaan dhihi karaa wadamada Afro-Kutiriska ah Turkigu sidiisa kale asagoo haduu doono gafaf kale ha sameeyaan waa waxay u badayaan laakiin dalkaasi Erdogan wuxuu ku guuleystay wadankaas inuu wadan siyaasaddiisa u madax banaan noqdo khalad iyo sax waxay Turkiga ka dhacay ayaga sameeya majority wax maanta Turkiga lagu sanduleeyo halka inta la qabto sida carabta iyo dalalka kale muslimiinta kuma jiraan waa yartahay ama aad bay u yartahay saameynta lagu leeyahay Turkiga maanta iyaga bareeriya waxay sameeyaan Turkiga ugu sheegayaan oo sheegay waxay ciidanka iyagu waxay noqon doonaan ciidan ilaaliya dalka waxa la yiri Masarna taasoo kala haysata Siisi waxa la yiri dadku inay ku kacaan ka baqaya oo wuxuu leeyahay anaga ciidanka iyagu gali maayaan qasa haday galayaan waa in Israa'iil noo soo dhawaan arrintaas marka maxay guul u tahay waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas uu ku dhex jiraa ugu dambeyn marka laba